Assalaamu calaykum. Isagoo isticmaalaya kaniiniga dahsoon wuxuu awooday inuu gaaro 100% ee awoodaha maskaxdiisa. Qoraagii halgamaaga ahaa wuxuu isku bedelay saaxir dhaqaale, laakiin waxa kale oo uu la kulmay duni cusub oo khataro ka buuxaan. Haddaba waa maxay sheekada kaniiniga cajiibka ah? Sidee buu qoraagu u isticmaali doonaa awoodihiisa aadka u sareeya? mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku sharxaynaa filim aad u xiiso badan oo lagu magacaabo Limitless. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay inagu soo biir muuqaalkan like saar. mahadsan. Eddie Mora waa qoraa halgamaa ah oo ku nool magaalada New York, kaas oo isku dayaya inuu horumariyo fikradda buugiisa. Laakiin nasiib darro, saaxiibtiisii ayaa ka tagtay oo lagu magacaabo Lindy, taasoo ka niyad jabsan horumar la'aantiisii qof ahaaneed, dhaqaale ahaanna ku taageertay xiriirkooda. Eddie waxa uu muddo kadib guursaday gabar lagu magacaabo Melissa, kadib markii ay ka qalin jebiyeen kulliyadda. Maalin maalmaha ka mid ah, Eddie isagoo niyad jabsan ayaa ku wareegaya magaalada. Kadibna wuxuu si lama filaan ah kula kulmay Melissa walaalkeeda oo la dhaho Vernon, kaasoo u sheegay inuu ka shaqeeyo shirkad soo saarta daawooyinka. xilli ay cabayeen sharaab, Vernon wuxuu Eddie la wadaagay sirta guushiisa, wuxuuna siiyey kaniini aan caadi ahayn oo lagu magacaabo NZT48. waxa uu u sheegay inay tahay daroogo qofka u ogolaanaysa inuu gaaro 100% awoodda maskaxeed, halkii qofka caadiga uu awooddiisa maskaxeed gaarsiisan tahay 20% oo keliya. cabsi badan kadib, ugu dambeyntii Eddie wuxuu qaatay ama cunay kaniinigii. kadib isagoo kusii socda gurigiisii, Eddie wuxuu la kulmay xaaskii milkiilaha guriga ee la dhaho Valeria. waxay ka carootay inuu awoodi waayay inuu bixiyo kirada guriga. isla markaasi, saamaynta kaniiniga ayaa si lama filaan ah ku faaftay jirkiisa. kaniinigii wuxuu Eddie u ogolaaday inuu si fudud dib ugu soo celiyo dhammaan xusuusaha ay maskaxdiisu diiwaangelisay. hadda waxa uu awood u leeyahay inuu si cajiib ah u falanqeeyo macluumaadka. isagoo isticmaalay kartidiisii cusub ee uu helay, Eddie wuxuu soo jiitay Valeriadii xanaaqsaneed. wuxuu ka caawiyey inay qorto waraaqadaheeda cilmi baarista ah. ugu dambeyntiina way la seexatay. Eddie waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo buugiisa maadaama ay maskaxdiisu ka buuxsantay fikrado cusub oo cajiib ah. maalintii xigtay markii uu soo toosay, wuxuu ogaaday in saamayntii kaniiniga ay jirkiisa ka baxday. kadib si toos ah wuxuu u tagay guriga Vernon si uu uga dalbado kaniini badan, laakiin aad buu uga naxay markii uu gurigiisii ku arkay isagoo meyd ah. Eddie wuxuu ogaaday in dadkii dilay Vernon laga yaabo inay raadinayeen isla kaniinigii. waxa uu qaatay box kaniini ah iyo xoogoo lacag ah oo taalay guriga Vernon. uu iska baxay kadib markii uu helay box weyn oo kaniini ah oo isticmaali karo dhowr bilood. Eddie wuxuu bedelay noloshiisii. wuxuu ku dhameeyay buugiisii 4 maalmood oo keliya. wuxuu bartay luqadaha qalaad. wuxuu bilaabay inuu safro adduunka oo dhan. Eddie wuxuu bilaabay inuu maalgashado suuqa saamiyada. wuxuu bilaabay inuu kaniini badan cuno ama cabo si uu si dhaqsi ah u bilaabo inuu labanlaabo lacagtiisa. waxa uu shaqo ka helay shirkad dilaal ah. waxa uu soo amaahday lacag dayn ah. waxa uu ka soo amaahday qof aanan sharciyeysnayn oo magaciisa la dhaho Kennedy. wuxuuna sii wadaa inuu gaaro meelo sare. wuxuu dib u dhisay xiriirkii ka dhexeeyay isaga iyo saaxiibkiisa Lindy. Eddie ayaa si degdeg ah u soo jiitay dareenkii bilyaneerka ah Carl Van Loan, kaasoo ku casuumay shir ganacsi. xilliga kulanka, Eddie wuxuu soo jiitay Van Loan isagoo falanqeynayay maalgashigiisa. sidoo kale wuxuu ogaaday inuu ka fikirayo ku biirista shirkadda Hang at Word isagoo aan ogeyn. waxa kale uu ogaaday inuu ku biiristan ku guuldaraystay. wuxuu Van Loan weydiistay inuu kala taliyo sidii uu dib u habeen ugu samayn lahaa heshiisyada isku dhafka ah ee kulanka soo socda. kulanka kadib, Eddie aad buu u farxay, laakiin intii uu sii socday ayaa nin jaakad dheer sita daba bursanayay. habeenkaasi wuxuu galay dagaal isagoo jooga goobta tareenka. kadib waxa uu hablo kula kulmay goob lagu caweeyo. waxa uu qabtay shaqooyin kale oo aad u badan oo sabab u noqotay saamaynta kaniiniga, halka uu jirkiisu qabto shaqooyin aan isagu ka warhayn. kadib saamaynta kaniinigii markii jirkiisii ka baxday oo ay dib u soo noqdeen dareemihiisa, waxa uu la ildarnaa ama la dhibaataysanaa xusuus la'aan muddo 18 saacadood ah. kadib markii ay ka dhammaatay daawadii ama kaniinigii NZT48 ee uu ka waayay gurigiisa. Eddie uma diyaarsanayn kulanka Van Loan ee uu mar hore qorsheeyay, balse madaxdiisii ayaa ku qasbay inuu tago. xilliga kulanka, Eddie waxa uu arkay warar sheegaya in haweeneydii uu xalay la hoyday lagu dhex dilay hoteelka, isagoo ka cabsanaya in loo malayo dilaa. Eddie waxa uu ku soo noqday gurigiisa. waxa uu kool la saarnaa Melissa oo mar hore uga digtay inuusan qaadan daawadii uu Vernon siiyey, sababtoo ah dadkii daawada
daawada ama kaniiniga qaatay badankooda way dhinteen ama isbitaal ayaa loo qaaday. kadib Kennedy waxa uu raacay AD gurigiisa sababtoo ah weli lacagtiisa dib uma soo celin. markii AD la garaacay Kennedy waxa uu helay kaniinigii NZT-48 oo AD si lama filaan ah dhulka uga soo dhaceen. Kennedy waxa uu qaatay kaniinigii oo waxa uu u raacay AD bangiga si uu lacagtiisii dib ugu soo celiyo. kadib intii uu ku sii socday gurigiisa AD waxaa soo gaaray xanuun nervous ah kaas oo si mucjiso ah ula halgamay ilaa uu ka soo gaaray xafiiska Lendi ee u dhowaa. dabadeedna waxa uu ka codsaday inay keento boxka kaniiniga ah oo ku kaydsan gurigiisa. Lendi markii soo laabanaysay waxay sidoo kale qaadatay hal xabo kaniini ah tijaabo ahaan. kadib ninkii shaarka weynaasitay ayaa daba socday isagoo isku dayaya inuu qabto. waxay si toos ah ugu carartay dhanka barxadda barafka ee u dhow. waxay aragtay gabar yar oo ay kabteeda isticmaashay si ay u dhaawacdo ninkii. si xun ay u dhaawacday. kadib markii uu helay kaniiniga AD uu soo caafimaaday oo wuxuu habeenkaasi waqti la qaatay Lendi. Lendi waxay u sheegtay inaysan la joogi karin isaga inta uu isticmaalayo kaniinigan. kadib AD waxa uu baaritaan ku sameeyay kaniiniga NZT-48. wuxuu go'aansaday inuu iska yareeyo qiyaasta kaniiniga si uu uga hortago waxyeeladiisa. intaa waxaa sii dheer inuu kiraystay 2 ilaalo oo isaga ka ilaaliya Kennedy oo uu ka soo amaahday lacagta. waxa uu sidoo kale qabtay qareen si uu uga hortago booliiska inay baaraan dhimashada Vernon iyo haweeneydii uu kula seexday hoteelka. maalintii kulanka Atwood wuu awoodi waayay inuu ka qayb galo kulanka. wax yar kadib xaaska Atwood ayaa timid si ay ugu sheegto in ninkeedii uu galay koomo. kadib markii Atwood xaaskiisii bannaanka u soo baxday way sii dhoweeyeen. AD wuxuu bartay darwoolkeeda qaaska ah waaba ninkii jaakada dheeraa kaasoo daba socon jiray AD iyo Lendi waqtiga oo dhan. AD wuxuu isla markiiba gartay in Atwood sidoo kale uu la qabsaday kaniiniga uusan caafimaadi doonin isagoo aanan qaadan hal xabo oo ka mid ah daawadaas. qareenka AD waxa uu jeebka jaakada ka xaday kaniiniyada AD isagoon ogeyn. AD wuxuu noqday xafiiska Van Loan. wuxuu ogaaday in wararka ku saabsan isbahaysigooda ay saxaafaddu ogaadeen. Van Loan ayaa weydiiyey AD yaa ka mas'uula. AD si degdeg ah ayuu u soo galay suuliga si uu u qaato daawadiisa laakiin waxa uu isla markiiba gartay in kaniinigiisii la xaday. dabadeed waxa uu helay baakad ay ku jiraan gacmihii laga gooyay ilaaladiisa. AD ayaa soo baxay oo aaday gurigiisa. muddo kooban kadib Kennedy waxa uu yimid guriga AD isaga iyo asxaabtiisii waxayna burburiyeen aqalkiisa. Kennedy wuxuu AD ka dalbaday daawadii NZT-48 oo wax dheeraad ah. kadibna wuxuu isku duray NZT-48 wuxuu ku sheegay inuu si toos ah ugu duray xididka dhiigga oo saameyntuna ay waqti badan kusii jiri doonto jirkiisa. dhibaatooyinka soo raacana ay yaraanayaan. kadib markii AD uu sheegay inuu ka dhammaaday kaniiniga Kennedy waxa uu ku hanjabay inuu dili doono intay asxaabtiisa maqan yihiin. AD wuxuu gaaday Kennedy oo uu mindi dhex dhigay. labadiiba dhulka ay ku dhaceen. AD isagoo taxabaan ah wuxuu wax yar ka cabay dhiigga Kennedy oo ay ka buuxeen daawada NZT-48. fikirkiisii waa uu ku guulaystay oo si degdeg ah ay u bogsaday. kadibna wuxuu u dhameeyay 2 ka mid ah xertii Kennedy. AD waxa uu aaday cisbitaalka wuxuuna la kulmay ninkii jaakada dheeraa. ninkii wuxuu u sheegay in Mr. Atwood uu dhintay. ninkii jaakada sitay iyo AD markay ogaadeen in qareenku uu sabab u yahay in Mr. Atwood uu dhinto si wada jir ah waxay aadeen gurigii qareenka halkaas oo ay ku garaaceen qareenka. kadib AD wuxuu soo ceshtay kaniiniyadii laga xaday. sanad kadib AD wuxuu ilaashaday hantidiisii waxaana aad u faafay buugiisii uu qoray. wuxuu u tartamay kursiga maayorka Mareykanka. Van Loan ayaa AD soo booqday booqasho lama filaan ah. wuxuu AD u sheegay inuu iibsaday shirkadda soo saarta daawada NZT-48 oo uu joojin doono samaynta ama soo saarista kaniinigii oo uuna ka jari doono fiditaanka kaniiniga. AD wuxuu uga jawaabay inuu mar hore la qabsaday saamaynta daawada. iyadoo ay taasi jirto Van Loan wuxuu ku adkaystay inuu AD la shaqayn doono isaga iyadoo aanan jirin wax hanjabaad ah. AD wuxuu daha ka qaaday aqoonta uu u leeyahay dhaqdhaqaaqyadiisii sharci darrada ah sida ganacsiga gudaha. Van Loan isagoo careysan ayuu meesha ka tagay. AD waxa uu waqti la qaatay Linda xilliga qadada. muuqaalkaas oo noqon doono muuqaalka ugu dambeeya ee film. tani waxay ahayd dhacdooyinkii filimka khayaaliga sayniska ee aan xuduud lahayn. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. fadlan ha ilaabin inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. sidoo kale muuqaalka like saar asxaabtaadan u share garee. mahadsanid.